السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيجي وياسين سيدا عذور نوغا برتين maanta waxaan soo qaadayaa waxaan ka baqayaa cajalada inay ugu dheeraato maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah sharciyada ku saabsan ilaalinta xogta qofka waxaa la dhahaa halkan baan ku qoriyaa waxaa la yiraahdaa GDPR ama GDPR baa la yiraahdaa waxa weeye xogta xasaasiga ah ku saabsan arrimaha internetka af Soomaali hadaan si rafli ah ama si galab ah aan u sheego waxay noqonaysaa xeerka guud ee ilaalinta warbixinta qofka ama shaqsiga marka xeerkaasna waxaa loo soo gaabiyaa EU-da ayaa sameeyay waxaa hore u jiray xeer hore oo la yiraahdo asmaa pool sharcigaasina waxa uu ahaa sharci xogta ilaalintiisa oo dalkan Sweden ka jiray laakiin hadda Europe oo dhan baa waxay ku tala gashay in ay xogtaasiti yeelato mid ay dhamaantood ay u sameeyeen bishii May 2018 ayaa sharciga hadda aniga aan ku sheegayo waxa bedelay sharcigan GDPR la yiraahdo oo ah in qofku xogtiisa afka Ingiriiska loogu soo gaabiyo waxa la yiraahdaa General Data Protection Regulation marka wadanka oo EU-da oo wadamada EU-da 28 wadamo oo EU-da oo dhan buu ka shaqeynaya oo ka hirgelaya waxaa laga rabaa macnaha in ay dhamaantood dadka EU-da degan ama midowga Europe dhexdiisa degan oo dhan in ay xuquuq isku wada mid ahaadaan asaaska sharcigan waxa uu yahay in xurriyadda iyo xuquuqda qofka in la ilaaliyo qof ahaan waxaad xaq u leedahay inaad heshid goob ama zone aan lagu qashqashin oo aadan cidna kaga baqan si aad fikirkaaga xortana aad u dhiibatid isla markaasaytina aanan qofna ka aruursan meelihii aad joogtay oo dhan si hadhow waxaasaytii ay dhibaato kugu keenin sharcigan GDPR-ka wuxuu naga ilaalinayaa marka in shirkadaha hay'adaha dawladda iyo dawladdu sideedaba ay yani dhamaanteen ilaalo dusha naga hayso oo aynu ogaato talaabo walba oo aynu qaadayno inay ogaato haddii aadan sameyneynin wax dambi ah ama dhibaato ah oo qof kale dhibaato ah haddaad iska tahay qofuun maaragtay internetkiisa iska dhex mushaaxaya yani inuusan noqonin wax adiga hagardaamo kugu noqon doona mar dambe marka xogta laga hadlaya marka maxay tahay xogtu waxay noqon kartaa magacaaga oo dhameystiran xogtu waxay noqon kartaa taariikhda aad dhalatay ama social security numberkaaga ciwaanka adiga aad degan tahay emailka ama e-postiga adiga aad leedahay footada sawirada macnaha adiga aad leedahay iyo waliba videoga adiga aad leedahay marka videoga adiga aad leedahay marka lagu leeyahay waa video ama adiga aad iska duubtay ama qof kale ka duubay labadaba iyaynan isku qaldin xuquuqda inaad sawirkaasi tilabo bashgareeyo qofka iska leh iyo qofka sawirkaasi tiba uu ka turjumayo waa laba shay oo kala duwan xuquuqda sawirka qofka qaaday ayaa iska leh tusaale ahaan haddii nin warbaahinta jooga ama saxaafadda ah uu sawir ka qaado sawirkaas intaad soo qaadato Facebook-gaaga aad soo dhigatid waa inaad ku qortaa xuquuqda qofka iska leh sawirkaas xitaa haddaad adiga sawirkaagi yahay yani qofka qaaday photograph-ka qaaday ayaa xuquuqdiisa iska leh laakiin photograph-ka laftiisu isagoo xuquuqda leh hadda isaguna ma public kama dhigi karo isaga oo aadan adigu ka haysanin ogolaasho marka sawirka uu qaaday wax qiimo ah keeni mayso haddii adiga aadan u ogolaanin marka dawladdu waxay leedahay hay'ad la yiraahdo data inspection oo ah kuwa baaro ama dabagala ama ogaada waxyaabaha xasaasiga ah kombiyuutarada raadka ay sameeyaan iyo shirkadaha shakhsiyaadka iyo dawladaha
urursada raadkaasaytii aad adigu kaga tagtay. raadka marka aan ku leeyahay micnaha waxa weeye markaad Facebook gasho kale haddii qof aniga saaxiibkay ah aan sawir ama wiili gabar waxay tahayba sawir ay soo dhigan haddaan like saaray oo kaleeto shirkado waxaa jira urursanayo xogtaada oo dabadeedna ku soo bandhigaya. waxaa marka la doonayaa inaanay aruursanin waxyaabaha sawiradaada, meelaha aad wax ka iibsato, website-yada aad booqato, iyo qofka aad chatka la samaysay xataa waa xog adiga ku qaas ah. so marka aad marmarka qaarkood marka aad gasho website wuxuu ku soo saarayaa heshiiskaasaytii inta badan dadku waxay taabtaan waan ogolaaday, yani xuquuqdii adiga aad lahayd baad intaad iska qaaday baad qof kuwii kaleetana aad siisay. waxaa weeye waa inaad akhrisaa ama meel kaleeto option ah baa jirto la taabto, waxaad iska xiraysaa waxyaabaha kale oo siyaadada ah oo necessary-ga aan ahayn oo rabaan inay kaa duubtaan. markaasaytuun baad okay taabanaysaa, waxaad leedahay e-save garee optionka aniga aan sameeyey, kadib baad hore usii gelaysaa. laakiin dadku intooda badan stress iyo degdeg bay qabaanoo waxay rabaan informationka meesha ku jira ama inay sawirada arkaan ama wax akhristaan oo ma videogi daawadaan iyagoona akhrinin bay waayahay intay taabtaan bay hore meesha u gelayaan. isla markaasaytina computerka iyo meesha aad gashayna xog buu wuxuu weydiinayaa computerkaaga ah oo u siinaysa in uu si free ah xogtaas u qaato. way ka mid tahay meelaha aad gashay, sawirada aad la garaysay, sawiradaada xataa qaarkood spy bay kugu noqon karaan, wayba ku tiftifi karaan oo way ku shirkadaha qaarkood marka iyo anagu og in ay marmarka qaarkood xogtaada ay u baahan yihiin oo emailkaaga ku qor, telefoonkaaga ku qor, addresskaaga ku qor, ama waxbaad ka dalbatood ka iibsatay kuu soo dirayaan wixii oo dhan. marka kuwaasay timar marka qaarkood waxaad u moodaa si ay u helaan dad badan oo wax ka iibsada ama xayeysiin badan ay u helaan, waxaa laga yaabaa in ay limitkii xadidaadii adigu aad xadiday ama sharciguba xadiday in ay xuduudkoodii soo dhaafaan. waa markaasaytii weeye marka dowladdu ama hay-adan dowladdu ay gacantu ka madax bannaan laakiin ay gacanta ku hayso ay soo gelayso si ay u ogaato xogtaadii meesha ay martay. waxaad ku samayn kartaa dacwad, sharciga ayaa ku ogol, raallina kaaga ah oo xogtaada inaanan lagu takrifalin. qaarkood xogtaada ayay intay qaadaan bay waxay ka iibinayaan si ganacsi ah, waxay uga iibinayaan waxyaabahan ay yiraahdaan third part, macnaha waa qof saddexaad, macnaha adiga iyo shirkadii waa laba tiin soo maha, qof saddexaad bay ka iibinayaan oo ay ugu talagaleen inay macaash kaleeta ay ka helaan. marka waxyaabahan aad akhrinaysid oo waayahay aad taabanaysid, yani hadhow qofkii ama shirkadii ma dhihi kartid muxuu ahaa waxaygii ka soo celiya, already waaba baxday shirkadii kaleetana way baxday. ninkan iyo shirkada kaleetana heshiis kaleeta ayaa iyaguna dhex maray oo ka soo noqosho ma laha. sida aan hore idinkugu sheegay, shirkadahan waxay xogta ururinayo noloshaada oo dhan waa waxyaabaha la yiraahdo puzzle ama puzzle Swedish-ka waa lagu yiraahdaa, yani waa qaybo yar oo maaragtay noloshaada ka mid ah oo marba meel aad ka isticmaalaysid. maanta shirkadan baa waxay ku weydiinaysaa email iyo telefoonno, kuwan baa waxay ku weydiinayaan address, kuwan baa waxay ku weydiinayaan diintaada iyo waxa tahay, kuwa waxay ku weydiinayaan nin iyo naag waxa tahay, kuwa waxay ku weydiinayaan. marka qofka rabo marka inuu xogtaada ururiyo dhammaantood hadduu wada helo wuxuu helayaa adiga iyo qofka aad tahay oo dhan iyo waxaad jeceshahay meesha aad jeceshahay, yani wuxuu ku haystaa warbixin ku filan oo hadduu rabo qofkaasaytii ama shirkadaasaytii hadday rabto in ay baabax kaa dhigto. waxaa waayadan dambe soo baxay shirkado yaryar oo dadku aanay ka warqabin oo faaliyayaal ah oo la dhahayo waxaad 2021 inta uusan dhamaanin lacag baad helaysaa, waad guursanaysaa, cunug baad dhalaysaa, loof iyo balaac iyo waxaas oo dhan marka aad yani abkaasiti marka aad geshid waxaad u ogolaanaysaa saaxiibadaada oo kale
anigoo dad fara badan baa waxay igu soo taageerayaan oo lacag baad helaysaa intaad helaysaa hebel Soomaaliya arkin dad caan ah sawirada intay soo qaataan waa kuwa scam sameeya waa dad yani scam sameeya dadkaas ay scam sameeya aniga waxay soo diraya aniga ima yaqaanaan laakiin saaxiibaday baa intay macluumaadkaygii ama de akoon bay haystaan akoonkooda anaa saaxiib la ah so marka magacyadii iyo saaxiibyadii iyo facebookyadoodii oo dhan bay intay qaataan ama saaxiibada intay u galaan intay qaataan bay aniga waxay ii soo dirayaan marka waxyaabo qaldan ama qaarkood xataa waxay anshax xumo ah xataa ii soo diraya so waxaa sameynaya waxaa weeye dadka aniga facebookyada saaxiibada igula ah oo scamkaasita ama faaliyaashaas oo kale galaya ayaamahan caadi bay ka noqotay inkastoo de muslim ahaan de faalkuna uusan fiicnayn haddana dadkuna way sameeyaan I don't know marka dadkaas marka xogtay aruursanaya waxaa kamid ah meelaha aad jeceshahay meelaha aad booqato social media aad booqato meelaha aad ka hadasho meelaha aad chatka ka samayso sawirka aad jeclaatay music aad dhageysanaysid sida YouTube-yada kale Google-ka markaad gashid waxbaad baaraysaa haddana waad ka soo baxaysaa website kale markaad gasho waxaad arkaysaa adiga oo muusigii xagga aad ka soo dhageysatay baa xayeysiin lagaaga sameynaya amaba alaab la iibinaya baa intaad fiirisay baad website intaad ka fiirisay baad ka soo baxday markaas aad meel kala gashay meeshii kale oo aad gashay website-kii hore wixii aad ku soo eegtay baa haddana halkan xayeysiin ahaan kaaga socdo war waxa ma iibsatay war hadday ku soo socdaan war ha ka tagin baa lagu leeyahay already waxa lagu sameeyay noloshaadii oo dhan baa puzzle scam baa lagu sameeyay waxa sameynayana waa automatic way computer baa wada sameynaya because macluumaadkaagii oo dhan baad hore u bixisay GDPR ka marka laba u kala qaybiyaan laba xogti bay laba u kala qaybiyaan xogna waa xog waxa la yiraahdaa xasaasi ah xogna waxa waa xog aanan xasaasi ahayn oo caadi iska ah so marka xogta xasaasiga ah waxa in qof la soo bandhigo qofku wuxuu yahay dhalashadiisa muxuu ahaa waxyaabahan sexual discourse macnaha ama de nin inaag waxa uu yahay oo kaleeto siyaasadda meesha aad ka jeceshahay ama xisbiga aad taageerto ama siyaasadaadu fikirkaagu macnaha mabda'iyan meesha uu u janjeero waxaas oo dhan bay urursanayaan oo ay qaadanayaan oo adiga de kugu saabsanayaan lacala hadday dhacdo marka inaad sawir aad qaado sawirka saaxiibada Sidee wata idin sheego oo idin yiri wuxuu kamid yahay xogta shaqsiga uu kamid yahay marka sawirkaasi waxa ka muuqanaya aniga hadii la iga qaado kale aniga qofka aan ahay iyo wajigayga suuradaydii saan u ekahay oo dhan baa ka muuqanaya so marka sawirkaasi waa tilmaam aniga ay tahay aniga ah so tilmaamtaas aniga ah qofka ku takrifala waa yani dagaal weeye so waxaan arkay gabdho sawir laga qaaday iyo fiidiyoyaal la iska duuduubay iyo halkan la isku ciyaarayo ogow yani YouTube-yada dadka Soomaaliya jooga xataa haday sameeyaan YouTube-yadu waxay ku diiwaan gashan yihiin dad Yurub jooga iyo adreesyadoodii ku diiwaan gashan yihiin so marka hadaad YouTube ka dacweyso qofkii adreeskiisa ciwaankiisa waa lagu siinayaa maadaama ay dambi galeen kadibna booliska ku dacweynaysaa kuwa YouTube-yada iska leh oo dhaha waxbaan tafatiraynaa qof baa tusaale ahaan sawir laga soo qaaday sawiradiiba intay soo qaadaan meelaha soo dhigaan bay waxay leeyihiin hebel waxay iska dhigayaan xataa qaarkood inay ka naxayaan ay leeyihiin oo hebel dambi baa laga galay sawirkaasi noocaas ah ama sidan ah baa laga soo sameeyay isagoo iska dhigaya xataa inuu qofka u naxayo yaa ku yiri sawirkan dibadda soo dhig adiga ma lihid adiga ma qaadin kuma dhex jirtid maxaa ku geliyay waa rufiyaannimo weeye so sidaas darteed qofka nooca sameynaya xitaa laftiisu dambigii iyo dhibaatadii buu qaybkiya so marka lacala haday dhacdo inaad qof sawir ka qaado oo sawirkaasi aad ugu tala gashay inaad public ka dhigto qofkii oosan ogeyn isku day inaad qofkaas wax wanaagsan ka sheegto ala aqal xataa qofka haduu kula dagaalamo ku yiraahdo war sawirkayga raali kaaga ma ahayn in case waad ka badbaadaysaa because waxaad uga badbaadaysaa yani qofkii xumaanka ma aadan sheegin ala aqal ma garanaysaa sawirkiina ka saar baa lagu leeyahay ama iyagaaba ka saaraya ama ka saar warning macnaha digniinna waa lagu siinaya waxa lagu leeyahay ay iska ilaali marka dambe akoonka dhan baa laga xiraaya war xitaa haduu ay dhacdo in telefoon aniga aan hayo haduu qof i weydiyo yiraahdo hebel telefoonkiisa si waxaan ku iraahdaa walaalku ma siinayo laakiin telefoonkaaga hadaad aniga isiiso hebel baan siinayaa hebel isagu ha ku soo waco haduu rabo ma garanaysaa because telefonka lambarkan waa xog
يعني وقف كاس إسكالي هاي إسقى إسكالي إلا بحية معها كان ديدنا وسحسين هاي كان لو ديدنا ده إنه كحناقة معها كان إلا حق ومعلومات وقف كاس كهاي وأمر وما هيستو فصح وما هيستو إنه لمبر كان بحية سو مركا لمبر كلفتيسو iyo magacaaga lambarkaaga dareskaaga meesha aad degan tahay da'daada taariikhda aad dhalatay waxyaabahaas oo dhan waa xog adiga yani oo aad leedahay oo aad shakhsiyadaadii de matalaysa ama ka turjumaysa way waxaad kaleeto oo xaq aad u leedahay in aad tiraahdo warbixintaydaas waxaan u baahanahay waxa macluumaadka aad iga qorteen oo shirkadaas ay taad iga haysaan inaan akhriyaan u baahanahay siiya waxay doontaa noqoto soo iyaguna waxay ku qasban yihiin qalad iyo sax waxay ka qoreenba inay ku siiyaan because waa macluumaadku waa xog adiga aad leedahay oo maxsaasi ahaata ama yeelkadeeda waa xog adiga aad leedahay oo adiga ay ka qoreen xaq baad u leedahay haddii aanay ku siininna waa hay'ad baaba jirtaba dawladdu ay leedahay laan dawladda ka mid ah ka faraceeda data inspection baa la yiraahdaa Swedishka dawladaha kale tan kulay magacyo kale local ahaan ay ula baxeen laakiin waa dawladdu waa hay'ad dowladeed weeye oo wadan walba kulay ku taalo sida aan rajaynayo oo filayo sharcigan GDPR kana dhamaantood quseeyaa soo marka hay'adaas baad ku dacweynaysaa waxaad ka qoraysaa dacwad baad ka qoraysaa marka intaas baan kusoo gabagabeyn lahaa magacaygu waxa la yiraahdaa Yaasiin Cabdullaahi waxaan kala soo hadlayaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aan barnaamijyadan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa insha Allah warsan iyo weersan